السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelka CR Warsame oo ah channel aad ugu imaan kartid hadduu alla yiraahdo casharo, talooyin, fikrado iyo arrimaha tiknoolajiyada la xiriira. Waxaan maanta idin soo gudbin doonaa hadduu alla idmo 5 barnaamij oo kuu suurtagelinaysa inaad la socon kartid isticmaalka mobilkaada iyo waqtigaada badankiisa sida uu ku baxo. Barnaamijyadan waxaa la isku dhahaa digital well-being. ayaantan dambe tiknoolajiyada gaar ahaan smartphonesku waxay qayb aasaasi ah ka noqdeen nolosheena oo wax walba ayaan u isticmaalnaa. dhanka kale waxaa mararka qaar dhacdo inaan waqtigeena badankiisa mobilka aan ku dhamaysano oo aan kaga mashquulno dhammaan howlihii kale ee muhiimka ahaa. barnaamijkooda waxaa la dhahaa digital well-being. waxaad tagtaa settingskaaga kabacdina hoos tag waxaa igu qoran aniga digital well-being and parental control. waa furaya isla markii wuxuu ku tusayaa qaybta kore inta saac ee aad mobilkaaga isticmaashay iyo barnaamijyada aad isticmaasho iyo wixii la midka ah. wuxuu ku tusayaa 1 saac iyo 22 daqiiqo ayaan isticmaalo u leeyahay maanta uu ka sheekeeyo dabcan 24 hours kiiba hal mar ayuu sheegaa. wuxuu ku tusayaa faahfaahin badan YouTube inta isticmaashay, Play Store inta isticmaashay iyo wixii la midka ah. haddii aan ku dhufto oo click siiyo wuxuu i tusayaa faahfaahin intaas ka sii badan. hoos haddaan u sii wado wuxuu i tusayaa YouTube ayaa intaas isticmaashay, Play Store intaas isticmaashay, barnaamij walba iyo inta daqiiqo ee aan isticmaalay ayuu i tusayaa. haddii aan dhankan u swipe gareeyo wuxuu i tusayaa isbuucii hore. haddaan rabo maalintaan rabo ayaan dooran karaa. maalin walba waxaan fidin karaa dhanka hoosena barnaamijyada aan isticmaalay ayuu ku tusayaa. marka dhankan haddaan u wadana waa isbuucyadii sii horreysay ku tusayaa isbuuc walba iyo wixii la midka ah. haddaan kor u wadana wuxuu ku tusayaa barnaamij walba iyo inta saacadood ee aad ku bixisay. inta oo ku dhuftana waa ku imaan karaa haddii aan calaamadda kor ku dhufto. waxaan kaloo samayn karaa dashboard inaan doorto meeshay ku qoran tahay. labadaas qaabba waan ku imaan karnaa. haddii aad kor u sii wado barnaamij kale ayaa ku yaalo cajiiba. barnaamijka dashboard ku xiga waxaa la dhahaa wind down. wind down wuxuu ku suurtagelinayaa haddii aad ku dhufato in aad markii aad habeenkii inaad seexato oo kale mobilkii isticmaalkiisa aad meel iska dhigto inuu si tartiib ah uu mobilkii kaaga bixiyo. wuxuu ku samayn doonaa marka in uu colorskii iyo si tartiib u soo damiyo. hadaarta waxaa dhihi kartaa hadda ima daarno idaar ayaa dhihi kartaa. marka batakan ku dhufato haddaa fiiriso waxaa dhihi kartaa xilligaas ayuu bilaabanaya 5 saac oo habeenimo kale ilaa tusaale ahaan 1 saac subaxnimo ama 6 ama 5 subaxnimo iyo wixii la midka ah. kabacdina wuxuu samayn doonaa inuu xilligaas markii la gaaro uu ku ogeysiiyo. waa iska xirayaa hadda. haddii aad hoos sii wado waxaa kaloo sidoo kale aad samayn kartaa inaad maarayso notificationska inaad samaysato waqti aad leedahay waqtigaan yaan la disturb garaynin. tusaale ahaan waxbaan rabtaa inaad akhrisato quraan rabaa inaad akhrisato 30 daqiiqo soo socoto waxaan rabaa in wax kale uuna mashquul in mobilkii iyo applicationska iska xiri karo. haddaan rabo 1 iyo 2 application ayaan deysan karaa. waxyaabo badan sidaas oo kale ah ayuu kuu suurtagelinayaa. haddii aan ku dhufto kor aan marka usoo laabto dashboardka any barnaamij ee aad rabto in aad iska xadido waxaa halkaa ku tusayaa barnaamijyada kuwa hadda isticmaalay waayo maanta. haddii aad hoos sii wadana iyagii oo dhan ayaa dabcan ku yaallo. haddii aan dhaho show all 112 apps dhammaan barnaamijyada oo tusaaya kii aad rabto marka waxaad dhigi kartaa waqti ku xir. tusaale ahaan YouTube oo kale halkaan ayaan ku dhufanayaa. waxaan dhigi karaa waxaan rabaa inaan isticmaalo 30 daqiiqo. 30 daqiiqo markii la gaaro wuxuu i leeyahay ma isticmaali kartid intaa ka badan iyo wixii la midka ah. barnaamijka waxaa la dhahaa digital well-being. waxaa badanaa uu ku yimaadaa mobilada Android 9 iyo wixii ka dambeeyay uu ku jiro ayuu Google ayaad ka heli kartaa. haddii uunan kugu jirin digital well-being waxaad isticmaali kartaa barnaamij kale oo la yiraahdo action dash. waxaan tagaynaa Play Store-ka waxaan ku qorayaa action dash. action dash markii aan qoro waa calaamadiisa sidan ay u taalaa. aniga wuu igu jiraa marka waxaan leeyahay open. marka aad furto isagana sidoo kale wuxuu ku tusayaa barnaamijyada aad isticmaashay iyo sida aad u isticmaashay. wuxuu leeyahay intaas ayaad YouTube isticmaashay, intaas waxaad isticmaashay barnaamij hebel iyo wixii la midka ah. 10 mar ayaad mobilkaaga furtay ayuu leeyahay. 6 notification ayaa kuu soo dhacday iyo wixii la midka ah. isagana macluumaad badan oo kale ayaa hoos ku yaallo. isaga waxaa sidoo kale samayn kartaa inaad dhankan u jiido oo uu ku tuso macluumaad kale dheeriya inuu ku tuso barnaamij walba iyo sida aad u isticmaashay faahfaahinteedii. isagana waqti ku qaado oo waxaad fiirisaa mid walba iyo waxa loo isticmaalo. kan marka waxaa isticmaali kara qofkii
qof walba ayaa isticmaali karo kii hore laakiin Android 9 iyo wixii ka dambeeyay qofka isticmaalaya ayaa isticmaali karo labadii barnaamijyo hore waxay ahaayeen barnaamijyo waaweyn oo dhameystiran shaqada ay qabanayaan waxaan kusoo gabagabeynayaa 3 barnaamij oo yaryar oo mid walba shaqo gooniya uu qabanayo barnaamijka saddexaad waxaa la dhahaa screen stop watch waxaan tagayaa Play Store-ka waxaan ku qorayaa screen stop watch screen stop watch waa kan ku soo baxay haddii aad fiiriso magaciisa waa kan aniga uu igu jira waa furaya open ayaan leeyahay shaqadiisu isaga sidan waaye wuxuu samayn doonaa shaashadda inuu soo saaro sidaan oo kale haddii aan set as wallpaper iga dhig preview itus ayaan leeyahay sida kuu muuqana sidaan oo kale ayuu shaashadaadii ka dhigi doonaa okay ayaan leeyahay haddii aad fiiriso shaashadda wuxuu ku tusayaa dabcan marka aan ku shubay ayuu ka bilaabayaa intaasoo saacadood intaasoo daqiiqo intaasoo sakan ayaad isticmaashay ayuu ku leeyahay intaas oo keliya ayuu dabcan isaguna uu qaban doonaa barnaamijka afraad unlock clock ayaa la dhahaa waxaan tegayaa mar kale Play Store-ka waxaan ku qorayaa magaciisa unlock clock wuu igu jiraa mar kale magacaas kore ayuu leeyahay haddii aan doorto waxaan leeyahay open ama ifur wuxuu leeyahay background-ka dooro iyo wix la midka okay ila tahay waxa ma ka bedelayo set as launcher screen markii aan dhaho haysiin ayaa ii soo baxday waa iska xirayaa waxaan leeyahay ka dhig launcher preview ayaan leeyahay sidaan ayuu isaguna samayn doonaa wuxuu ku tusayaa oo keliya inta mar ee aad screen-kaaga aad open garaysay barnaamijyada aan jeclaystay waaye waxaan leeyahay set as wallpaper screen wuxuu leeyahay hal mar ayaa furtay haddii aan hadda mobileka aan xiro oo aan furo screen-ka aan furo waxa uu ku tusayaa inuu isbedelayo 2 mar ayaa furtay ayuu leeyahay iyo wix lamid marka wuxuu ku tusayaa maalin walba 24 saac how many times ayaa screen-kaaga unlock garaysay barnaamijka ugu dambeeyo waxaa la activity bubbles waxaan mar kale tagayaa Play Store-ka waxaan hadaad ku qorto activity bubbles hadii kalena sida ku muuqanaysa halkan ayuu aniga iga soo muuqanayaa activity bubbles uu igu jira already waa ku dhufanayaa markii aan ku dhufto wuxuu leeyahay fur maadaama uu igu jiro open aan leeyahay wuxuu leeyahay waxaan rabnaa settings in aad ogolaato barnaamijka mar walba uu soo kaco mobilkaaga maadaama uu isticmaalayo settingskan tagaya waxaan dooranayaa auto start up waa ii dooranaya already aniga okay ayaan leeyahay back ayaan leeyahay now preview sidaan kale way haddii aan set as wallpaper oo aan dhaho preview itus wuxuu shaashadaada ka dhigi doonaa sidaan oo kale markasta ee shaashada aad xirto ee aad furtid waxa uu ku tusayaa bubble yar ayaa soo boodayo kuusku wuxuu ku tusayaa marka kuus weyn haddii wuxuu ku tusayaa shaashada wax badan isticmaashay hadduu mid yar yahay wax yar ayaa isticmaashay marka mar walba aad furto shaashadaada inta aad isticmaasho ayuu kuu sheegaya haddii aan dhaho ka dhig haddii aad fiiriso marka koobaadba kan ayaa ii soo baxaya sidaas ayuu u wadi doonaa ilaa shaashadaada ay buuxsanto dhammaantood marka waxaa lagu talagalay barnaamijyadan screen-ka iyo mobilkaaga isticmaalkiisa inaad xukumi kartid ama aad la socon kartid barnaamijyo aad aan u jeclaystay waaye waxaan aad uga helay oon anu isticmaalaa unlock clock mobilkiiaan ku isticmaalaa mid kale mobil kale leeyahana waxaan ku isticmaalaa activity bubbles waxaa kaloo isticmaalaa labada mobilba digital wellbeing iyo action dash 4 ka mid a marka 5 barnaamij waan isticmaalaa adiguna tijaabi waa barnaamijyo fan ah oo aad jeclaysanaysid inaad ogaatid bal sida aad tahay iyo wix la midka waa kuma santiin daawashadiina waxaan hadduu alla yiraahdo la wadaagi doonaa barnaamij sidaas oo kale ah videoskeena soo socdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh